إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. kusoo dhawaada youtube channelka Zakiya Aadam. waxaa mahad u sugnaatay Alle subxaanahu wa tacaala. marka xigta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabta ku xiran youtube channelka ee inta daawanaysa. waa barnaamijkeeni fahamka soonka ilaalintiisa xalqadiisa afraad. xalqadan waxaan ku qaadan doonaa dhowr ciwaan. waxaan ugu horeyn doonaa makruuhaat asiyaam, waxyaabaha karaahiyada ka ah inta aad sooman tahay in aad samayso. kow, almubaalaqatu fi lmadmadati walistinshaaq, oo loola jeedo inuu qofka ku xeel dheeraado in uu luqluqdo ama uu sandaarsado xilliga uu weyse qaadanayo, taasoo looga baqaayo in sankaaga ama afkaaga ay ka gudbaan biyaha kadibna ay u gudbaan dhuunta ilaa iyo caloosha ay tagaan. labo, alqublatu wallamsu almubaasharati walmucaanaqa, in dhunkashada iyo taabashada si toos ah la isku taabto labada qof ay isqabaan, taasoo looga baqaayo in labadaas qof ay ku dhacaan jimaac. saddex, dawqu acaami ligayri xaajatin, qofka in uu dhadhamiyo cunno muhiim aysan u ahayn. haddii aadan cunto kariye ahayn, waxaa qalad ah in aad soo baxdo jika aa imaato weel cunto ku jirto inaad ka dhadhamiso cuntadaas. waxyaabaha karaahiyada kugu ah inta aad sooman tahay ayay ka mid tahay. alwisaalu fi siyaami yowmeyni aw 3 ayaam biduuni tacaam, qofka in uu soomo 2 maalmood ilaa 3 maalmood isagoo aanan cunin wax cunto ah. dabcan isagoo aanan afurin, isagoo aanan suxuranin, inuu isgaargaarsiiyo ilaa 2 maalmood ilaa 3 maalmood, ka badan qofku maba awoodi karaba. markaas waxaa oga baxnay ciwaankaas. waxaan gudagalaynaa ciwaankeena kale oo ah mubaaxaat as-sawm, waxyaabaha kuu bannaan inta aad sooman tahay oo aad samayn karto. almadmadatu walistinshaaqu lissaa'imi fi lwuduu'i biduuni mubaalaqa, qofka in uu luqluqan karo ama uu sandaarsan karo isagoo aanan ku xeel dheeraanaynin. labo, ightisaalu saa'imi wa sub almaa albaarid cala alra'si min alcadashi walxarri, in qofkii soomnaa uu qubaysto ama uu isku shubo jirkiisa, madaxiisa laga soo bilaabo madaxiisa inuu ku shubo biyo qabow isaga oo kulayl iyo haraadka cararaya waa ay u bannaan tahay. tadawuqu dacaami lisaa'imi cinda alxaaja, qofka sooman haddii baahi ay u geyso inuu dhadhamin karo cunto waa uu dhadhaminaya, balse ma ahan inuu laqo waa uu tufaayaa kadibna waa uu ka luqluqanaya. maxaa loola jeedaa? haddii aad tahay qof kuug ah oo ka shaqaynaya hoteelada ama maqaayadaha ama guri hadaa ka shaqaynayso, dumar ama rag waxaad doonta ahaw, muhiimadda waxay tahay cuntada dadka inaad ka dhadhamiso. markaad dhadhamisana maxay tahay in aadan laqin oo tufto kadibna aad luqluqato. waa waxyaabaha kuu bannaan oo aad samayn karto. alqublatu walmubaasharatu lisaa'imi idaa wathaqa binafsihi fiima xarama allah, qofka labada qofood ee isqabto in ay isdhunkan karaan, in ay istaaban karaan, haddii ay awoodaan ama haddii ay ku kalsoon yihiin naftooda in aysan ku dhicaynin wixii ilaahay oo ka xarin oo ah aljimaac fii nahaari. 5, maa yacrudu lisaa'imi bigayri ikhtiyaarihi, waxa uu la kulmo qofka sooman isagoo aanan ugu talagelin. tusaale, qofkii isagoo aan ugu talagelin ayuu ama hilmaansan ayuu wuxuu cabay biyo ama wuxuu cunay cunto, dabcan soonkaas wuu u jiraa wuuna sii badanayaa. qofkii isagoo ogeyn oo hurdaayo ayaa waxaa ka imaatay intuu riyooday mani, taas maxay tahay? isagana hurdadiisa markuu ka soo kaco soonkiisa ma ka jabin oo waa u sii soconaya. 6, taxliilu dami wa darbi alibri allatii laysa fiiha ghadaa, qofka in laga qaadi karo dhiig isaga oo sooman, laguna duri karo cirbadaha aanan ahayn nafaqada ama gulukooska oo kaleete. haddii qofka uu ahaa qof cirbado u socdeen, cirbadahaasna aysan ahayn kuwo nafaqa ku saabsan sida cirbado qalajiyayaal oo kale isagoo qaadanayo wuu qaadan karaa. waxaa la diidayo keliya waxay tahay faleebooyinka gulukooska ama maxalleed nafaqada cuntada iyo cabitaanka booskeeda gali karto. albukhu fi lfami walanfi liasxaab maradi rabwi, dadka qaba neefta isticmaala bakhaaqu lfami walanfi, bahalka lagu buufiyo afka iyo sanka, bahalka lagu buufiyo afka way isticmaali karaan iyagana xilliyada ay sooman yihiin, waayo waxaan ghidaa ahaan ma ahane lisixa ahaan ayay u qaadanayaan. laa ba'sa bitandiifi alasnaani bilmacjuuni, wax dhibaataa kama imaanayso qofka haddii uu macjuun ku luqluqo oo ku cadaysto. wax dhibaataa kama imaanayso qofka haddii macjuun uu ku cadaysto inta uu sooman yahay, wayna u bannaan tahay. haddaba meeshaas waxaa uga baxnay 8 shay oo inoo bannaan inta aan sooman nahay oo aan samayn karno. haddaba saa ogeedeen xalqo walba inta aanan ka bixin waxaa idinkugu reebi jiray su'aal. su-aasha xalqada maantana waxa ay tahay: sheeg magaca ramadaan suuradda lagu dhex sheegay. sheeg
magaca Ramadaan suuradda lagu dhex sheegay. muuqaalka nabada intaan ku kulmi doono wa aquulu qawlii haadaa wa astaghfirullaha li wa lakum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.